ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha igu heliya ayaa khadka taleefonka ee marka kula xiriiray maxamed macalin iidey wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen. shalay galabtii markii 4 galabnimo ay aheeday ayaa ciidanka amisom magaalada soo gashay. markii magaalada soo gashay qarax ayaa la beegsaday. waan gartay marka qaraxii kadib maxaa dhacay? qaraxii kadib efindiriya xaafida usoo degteen guri bay galayeen iyo weelay oo xiran gitaano iyo meelahaas ay dhacaan. markii dhalinyarta ay arkaan inay dilaan gurigeena soo galeen waxay dileen aabahey haweenkii iyo 4 ama dhalatay 6. marka idinka qoyskiina 6 qof bay ka dileen. marka wiilashan magacyadood bal wiilashan walaalaha ay la dilay mid waxaa la dhahaa Omar Macalin Iid, midka kale Yusuf Macalin Iidey, midka saddexaad Ali Macalin Iidey, midka afraad Xuseen Macalin Iidey, Macalin Iidey la yiraahdo iyo adeerka Xamarow. waan gartay marka dadkani gurigay wada joogeen dhammaantood gurigay joogeen anaga idinka xadaan qarnay gabar anaga dhalata la guursanay. maxaa ciidamada AMISOM ku kalifay inay gurigeena iyadoo la iska joogo ay soo galaan ciidamadanaad sheegtay inay AMISOM ka tirsan yihiin oo ay dad laayaan? waayo waxay waxba mu baxsan waxay jeceliin inay guriyalka ay galaano ama meel xeer inay galaan oo waxa dukaan uu yahay inay bilagsadaan guradu yahay dadkii ku jiraan inay oo ay laayaan wixii lacag ku jiraan inay qaataan waayo ma dhaafan ay dilaan ay soo baxaan. adigu xilliga dilku dhacayay ma gurigaad ku sugnayd? ma xaasilaan ku jiray laakiin gurigeyga markaas waa ka dheeray 4 boos anagaan ka jiray. dadkii kale guriga ku jiray ciidamo ka badbaaday? gabdho aan mid aan u dhalatiyo iyo gabdho kale oo xaasida oo ama aan u soo galeen inay oo meesha ku gambadaan. intaas markay xooga waa la garaacay guriga ka baxalay hor u baxasada mid aan la taxalay oo yaalkan yaris qolku ku xareyso muusale ikile qolki. ogaalka miyay dagaalameen walaalaha ama markii ay ciidamadu u soo galeen maxaa ciidamada ku kalifay inay tallaabadan qaadaan? ciidamada waxaa ku kalifay guriga ay soo galeen wiilashii ay farfariyaan oo salaada duknaan walba kitaabkiisa uu wato markay ay dugteen kitaabkiisa ay wataan ay soo galeen gurigii babaareen wiilashii meel ay fadhiyeen markii gurigii ay soo babaareen qof walba ay galeen alaabaha kala gediyeen kadib waa soo baxeen waxay isteen war nimankan ay shabaab ay yihiin video fiican oo tii shabaab ma ku leeyahay ma ay shabaab ma ay saddex isku nasreen marka go'aan bay soo saareen inay dhaafino ay dilaan. marka maxay ka shaqayn jireen walaalaha? mid wuxuu ka shaqaynay kawaan hilib uu ka shaqaynay mid wuxuu ka shaqaynay dhagax guryaal ku dhisay mid wuxuu furneed biibito maqaayo midna wuxuu ka shaqaynay kawaanka biyaha galay biyo alitaan 4 saas ay ahayn. marka guriga iska fadhiyay ilaa sugay anaga la sugay. AMISOM saad sheegtay waxay ku doodayeen ama ay sabab uga dhigeen saad adigu sheegtay inay al-shabaab ka tirsanaayeen. maxaad ku cadaynaysaa inaan walaalaha al-shabaab ka tirsanayn? waxaan ku cadayn karaa walaalay inay shabaab ahayn weliba tadaynayba waxba oo qorshe ay isla fulinin barnaamijkaas ahayn. waan gartay aad baad mahadsan tahay. bal haddaad odayaasha dhaqanka ee kula jooga aad iigu dhiibtid. anigu oday beeraley oo magaalada deganaan ahay. bal magacaaga? Xuseen Cismaan waa sugay. waxaan cadaynayaa nimankaani nama soo marin waktigii Etoobiyaanka noogu xumeed in dad masaakiin oo oday iyo wiil iyo gabarle intaa loo yimaado lagu laayo ma gurigooda hortiisa. maalin dhaweedna taa mid ka xunaa dhacday waana ciidan Ugandesa. Burundi ma ahan, Soomaali ma ahan, wadankana kama jiro waxaba yaraatee maamula magaalada marka kama jiraan oo dawladii kama jirto. waan gartay laakiin idinku weli ma la hadasheen oo ma u tagteen ciidamada oo ma la fadhiisateen oo culayskan aad sheegaysid iyaga ma kala hadasheen? nacam waxay yidhaahdeen annaga markaad shabaab la hadashaan ay naga daayaan qaraxaan joojinaynaa waxa aan wadno. annaguna dad shabaab la hadli kara ma nihin, mana naqaano shabaab. waan gartay laakiin hadalkaa laftigiisa yaa idinku yidhi hadalkaa? qofka idinku yidhi ma garanaysan? waxaa nagu yidhi taliyaha ciidanka AMISOM ee magaalada Marko. waan goormay ahayd xilligu idinku yidhi? maalmo ka hor waqti yani 2 isbuuc ka hor ayay ahayd dilkii. arrintaani arrin cusub maahan, waa arrin soo noqnoqota magaalada yani daimiya uga dhacdaa, maalin walbay ka dhacdaa. marka ma aha wax oo maanta keliya dhacda nagu ah. maalin dhawaad 18 qofoodaa la dilo dad beeraley iyo inaad ka warbixisaan aan moodaa.